ciidanka dawladdu soo weerareen ee Suldaan Maxamed Muuse Cune Faarax Diir kaasoo gobolkan Togdheer arrintaasoo ka dhacday dhaqan ahaan islaam ahaan nasaariya yuhuudba wax masaajid ku weerara bil Ramadaan qof leeydi uu hadaloo qura loo haysto meynaan adaga wax nagu cusub baahay qadaf badan iyo dhibaabo badan oo gaarina way jiraan inta markii laga yimaado annaga xanuun bay nagu haysaa culays bay nagu haysaa ka duwanaansho dadka wadadiga Soomaaliland bay nagu haysaa fariintan si gaar ah waxaan ugu socodsiinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaynu ogni wadanka in maalin walba beeshu doonaha ahaadee miidiyaha laga caadaystay waxaan dhaqanka iyo dawladnimada ku wanaagsanayn waxaynu ognahay rag madaxweynaha isku beelihiin inay kuwa ugu fadalada cadcad yihiin tusaale haddaan u soo qaato Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi oo madaxweynuhu adeeru yahay suldaanka guud ee Subeera wala wadanka wuxuu geliyay waa loogaayay wuxuu kaga dhaxday habeena lama xidhin wax loo raacayna ma jirin gudbaan meel dhaafin madaxweynaha ku ololeeyay isaga kala qaybinta dalka iyo kala qoqobka silaaya ka tagay wasiirka arrimaha gudaha ku jira Salebaan gaal baa waday taageerayaashii afka ugu shubteen baa sameeyay waxaan ku leeyahay Muuse Sooliyo Sanaag baa maanta ololaya Sooliyo Sanaag burca iyo Hargeysa dabka soo gelin dadku nabadgelyo wadanka ku haystay wadanka nabadgelyo lagu haystay sixir barad abaar cayd danab iyo duufaan iyo dabayro kunees cudur iyo shuban kun waxba intii xisbiga kulmiyeetalada dalka gacanta ku hayay kun waxba soo maray waxaan ku leenahay maanta in yaroo nabadaba gobollo yaroo tiro yar ay ku si gacanta ay ku si hayaan adigoo nabadgelyada eegay gurigaagu iyo madaxtooyadii kugu soo galay dabkuye Suldaan Maxamed Muuse Cune faraha ka qaatay haddii aad ka qaadi weydo oo Ramadaan masaajid ku jira oo masaajid lagu weeraro sidii raggii ugu horeeyay sheegay yuhuuduna ma sameeyay taas waa mid Maxamed Muuse Cune u dheeraada waana ka xun ta kale waxa leeyahay madaxweyne dee dawladdu mid adiga kula dhalatay ma aha oo aad aan ka horreynina dawlad ka horeysay soo dhisnayd dad kursiga ku fadhiisatay dawladda soo dhisnayd sharciyo ilahay awoodo kala sareeyo iyo qaar simanba way lahay gobolladoo kale marka laga hadlayo awoodo siman bay lahay wixii gobol ka dhaca gobol kale looma gudbiyo sharciga wadanka u yaala ma dhigayo in wixii gobol ka dhaca gobol kale loo qaado waxa kale oo Maxamed Muuse u dheeriya haddii dawladdu wax ka tirsatay dee gobolkiisa lagu qabto oo lagu baadho si ay dhul ku baadho bilaysku ku qabto haddii bidikeeda xeeraaliyo ku soo eedeeyo maxkamaddu ay ku xukunto ama wax ku weydo ama wax ku hesho inta midina may dhicin sidii waxaan adduunyadaba ka dhicin waa la qabtay iyo Hargeysa loo qaaday awoodii wadanka ma Hargeysa bay taala gobolada kale miyaad ka qaaday awoodoodii waxa weeye waxaanu leenahay suldaanka lagu soo celiyo gobolkiisa sida raggii ugu horeeyay sheegayna dee ayadu way socotay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxaanu ka codsanaynaa Maxamed Muuse dee dadka maxaan ku leeyahay kamuu duwanayno deyrka ka muugubin wixii dadku lahaayeen oo bulaha haday khalad tahay haday sax tahayba qaar ka dambi waaweyn arlada waa qaadayaan oo waa til la sheegay isaguna maxaan ku leeyahay dee hadalada lagu hadlayo inuu qaarkooda ku hadlay deyrkii ma ka muugubin oo kamuu duwanayn waxaanu ka codsanaynaa dawladda sariyada hooseba dee in loo soo dayaa madaxweynaha oo maxaan ku leeyahay in loo soo dayaa dee waa suldaankii reerka waa madaxweynihii maanta Soomaaliland inay isxidho iyo inay suldaanada iska xidho iyo in odayaasha iska xidho dee kuma wanaagsana waayo cadawaba ku soo duulayo iyadu inay meel wada jeesato xagga cadawga wada abaarto ay Soomaaliland ay xoreyso ayaa ku wanaagsan tahay laakiin haday naga isxidhno odayaasha xidhno oo maxaan ku leeyahay juuq ilaahay la xidho dee cadawgaanu ka faa'iideysanaya way naga faa'iideysanaya
waxaanu leenahay Soomaaliland si ay dhinac ugu wada jeesato oo ay dhinac ugu wada jeedo hala soo daayo suldaanka ilaa waa madaxweynihii reerka hala wasiir hawlihii bariga ka dhacay bariyahan ee aad wasiirka u ahayd wax badan baa la tabay ila Muuse cunana hadalkiisu wuxuu ku saabsanaa ee uu galayna waanu ka jid qaadanayna hawshan odayaashu ay ka hadlayaan waxaan leeyahay wasiir markii hore aday ku hortaala aday ku